الله أكبر الله أكبر. الدنيا سلا مرك عيتهاي إلهي سبحانه وتعالى وحيري في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. آخرة وحاجر عذاب درن وقفك الدنيا كوكة سومة وعوين لو عذابي وحاجر مغفرة يدم دافية جنة إلهي سبحانه وتعالى. قفك الدنيا سلا أفهمه إلهي سبحانه وتعالى وسلا سبت بادلي. أيسويدين أين سكانها الذين بنوا مدائنها عوضت مقالوين كذا قصي وشقوا أنهارها وبيد السمية وبيد الدلاعية وغرسوا أشجارها كذا أطلعوا بيرها السمية وأقاموا فيها يسيرا إن يرنا كنا قادي ومعاصد كل حسمية. أين تتكاسي حقيقة الدنبي؟ ماذا صنع التراب بأبدانهم؟ مقار كودي حملودي التراب يعيدوا ما حيكون صبيس والديدان بعظامهم وأوصالهم دحريقوا مركوا قلي حملودي يهيلم كودي ودحق علي محوك السمي. فإذا كنت مناديا فنادهم حتى قبوله صومر تدبروا ضواع ومر بعسكرهم ماشي دقيهم بالمر وأي توغا وانظر إلى تقارب منازلهم guriyahoodu sida iskugu dhow yihiin bal fiiri daarihii ay lahaayeen adduunyada iyo wixii ay kala degnaayeen iyo mid walba intuu dhul goostoo haystay bal waxaad eegtaa dadkii naga tegey oo aynu naqaana meesha ay degeen bal eeg daarahoodu sida iskugu dhow yihiin eeg. was'al ghaniyahu maa baqiya ghinaah bal midkeedii ghaniga ahaa weydii ghaninimadii muxuu ka hayaa. واسأل فقيره ما بقي من فقري كيف فقير كأها ويدي فقري محوك هيا. واسألهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون لسان كي يعرب كي يكون هذه الجيران ومتكم مامول الجيران ويدي حقاكم دمي. وعن الأعين التي كانوا بها يبصرون إنها أي وحكو داوان جيران وحكو أركي الجيران حقاكم دمي. واسألهم عن الجلود الرقيقة والأجساد الناعمة وعاد ويديسا وجه يدي قروح ضبطنا هي مقارك هي جسمك الناعم كاها يحملوه دي بالماشي كدن بيان ويدي. أليسوا في منازل الخلوات والفلوات ميين تتكاسي أين ما أنت كسقنين بهقويو ينول عضلاه ميين كسقنين. أليس الليل والنهار عليهم سواء habeenk iyo maalinku mid u siman miyuusan agtooda ka ahayn. qofka halkaa ku jira habeenna ma haysta maalina ma hay. alaysuu fii mudlahimatin dalmaa mugdi madow oo qundula miyaysan ku dhex jirin. waqad xiila baynahum wa bayna alcamal ayaga iyo camalkoodiina waa kala go'ay. fakam min naacim wa naacimah asbaxat wujuuhuhum baali gabar qurux badan wiil qurux badan oo wajigoodii uu noqday mid dhammaaday fara badan bal u fiirso. afkoodii waxaa buuxiyey dhacaanka ka soo baxaya jismigooda iyo urka ka soo baxaya iyo siduu u baaba'ay ayay waxay noqdeen carun ayay noqdeen. wadabbat dawaabu lardi fii ajsaadi bahalladii yaryarka ahaa oo tixirigiya wixii la midka ah ayaa jirkoodii iyo xibnahoodii qulqulay oo qaaday. fatafaraqat acdaa'uhum markaasay xibin u kala dhacay. soo ma jeed xibin ayay u kala daateen. wallaahi kadibna ma aynan nagaanin xataa caadat alcidaamu ramiima ilaa xibnihii lafihii soo haray ay noqdeen kuwa baaliyoobay oo dhammaaday oo ciidda ku milmay إلى أين نقل. فارقوا الحدائق بيرودي ويفارقين قريودي ويفارقين أحبودي صاحبودي ويفارقين طرقدي الشوارع دي أي مري تشرين ممريان. تزوجت النساء هواكي ولا قرسة عرورتينا حوليه بين لوريقين حوليه بيكون مشغولة يانا نحلا دين أيقنا هالكاسا دي حلو كلوني أو أي كل دمادين دعانكود يهلمكود ممكن تحدث أبونا كواسي دي سقرابنا لأمي
miyaynan rixim iyo ahalna la wadaagin miyaynan maalin walba aynan qaadin ayagoo faxmi iyo dhuxul ah adduunyada aanna ka qaadin aawa daarahooda aawa hantidooda aawa magacooda hal mar ayuu suulay oo baaba'ay yaa saakina alqabri gadan berri ninka degaya daartaasow ma aladii qarraka bidunya maxaa adduunyada kugu kadiyey waxaa tahay adiguna berri ninka la degaya ayaa tahay meel laga soo hadlo ma ahan meel laga caawin karo ma ahan meel la og yahay waxaa ku sugan tahay ma ahan meel lagu soo gurman karo ma ahan meel waxaa ku haysta a sheegan kartid ma aha laa xawla walaa quwata ila billah wuxuu nabigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina maطcama bni aadam jucila maalan lidunya war bani aadamku waxa ay cunayaan ayaa adduunyada tusaale looga dhigay wain qazaxahu wamallaxahu fanduruu ilaa maa yasiir cunnada aad cunaysaan laftigeeda adduunyada tusaale looga yeelo si kasta haddii bani aadamku cunnada uu cunayo ugu tafannuno oo nuuca ugu wanaagsan uu sameeyo bal waxaad eegtaan baa nebigu yidhi cunnadaasi waxay ku dambaynayso musqushuu geynayaa sankuuna ka qabsanay gadaal uma eegi karo waa cunnadii ugu fiicnayd oo sida ugu fiican loo sameeyey wey wahaakada dunyaa baa isbay tahay waxa weeyaan xaqiiqadu adduunyadanu sidaasaa nebigu ku mitaaliyey inay tahay wax kastoo aad cuntid iyo wax kastoo aad dhistid waxay ku dambaynayaan kharaab iyo damaar iyo dhamaashay ku dambaynayaan faxmad illaah qofka maanta camalku u furan yahay oo waxa weeyaan fursadda haystow ilaahay subxaanahu wa tacaala ku mahad ogow xaqiiqada maalin maalmaha ka miday kugu imaanaysaa ma saacada kadibba ma maalba ka bacdiiba wixii aad camal falan lahayd samayso